السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ونحسن لما أصحابنا نوحرن جود أهن مقالكم حكا جواب الدون سؤال دورة أو أصحابنا نوحرن معلمه لصورة في نسوي دينية كواس أو جود أهن انترفيو وخصاب سنة ما دام وحكلية والكائد كأوبدن لقى موجنا وياهي انترفيو وحنا سجود وهم بليانية لما أصحابنا انترفيو وصادعي كوا وسنولي انترفيو وصادعنا وحن رجينا إنه صادعه وحنا إن بدن كله لها حدي وسنولي انترفيو يكون صادعين واحد هيستا فرصة ذهبية أو أي سن هيسن بدن أو انترفيو usoo dhacay diyaar garowgii looga baahnaan aan samaynin sida darteed bedelkii aad interviewga daahsan lahayd ama aad dhihi lahayd hebel iyo heblaayo isku waqti ayaan ahayn interviewgiina waa uu usoo dhacay taas bedelkeeda waa inaad waqti ku filan gelisaa kayskaaga iyo guud ahaan dacwadda ku qoran ma caafimaad qaba mise ma caafimaad qabo hordhac ahaan intaas haddii aan uga gudbo bal aan wax ka niraahno guuxa dadweynaha ee interviewga la xiriira waxaa laga yaabaa in sargaalka ku wareysanaya isbarasho kadib uu ku yiraahdo waxaan gacanta ku hayaa kayskaaga waana diidi karaa waana aqbali karaa sida darteed waa inaad runta sheegtaa markaas oo kale looma baahna inaad aamusto ama tiraahdo haye laakiin waa inaad ku jawaabtaa waxa aad gacanta ku hayso ma aha kayskayga ee waa mustaqbalkayga waxa aan ku hor fadhiyaana wax kale ma aha ee waa inaan runta ku sheego marka maadaama su'aalaha lagu weydiinayo ay isugu jiraan su'aalo mooda iyo kuwa aan muuqan intaba waxa muhiim ah inaad samayso diyaar garow dhammaystiran si aad isaga ilaaliso in dulduleel ama khaladaad laga helo waxaan sidaas ku leeyahay haddii qofka interviewga ka qaadayo ku weydiiyo su'aalo aadan markii horeba ka soo diyaar garoobin ama aan xisaabta kuugu jirin in lagu weydiin doono waxaad ku qasban tahay inaad kaga jawaabto sida ay kuula muuqato ama aad istiraahdo waa ay ku habboon tahay hana hilmaamin in qofka aad u waramayso uu nowdgaraysanayo jawaabaha aad bixinayso waxayna inta badan isticmaalaan xeelad ah in dib lagu weydiiyo su'aal aad saacad ka hor si male awaal ah kaga jawaabtay tusaale waxaa laga yaabaa in kayskaagu ku jiray dil ama afduub kuna caddahay taariikhda falkaasi dhacay waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo saacaddu imise ayay ahayd xilliga falku dhacayay yaa goobta ku sugnaa xilliga falku dhacayay adigu halkee joogtay xilliga falku dhacayay khasaare intee leeg ayaa goobta ka dhacay marka laga reebo falka kayska ku xusan sawir guud ma ka bixin kartaa qaabka ay wax u dhaceen iyo wixii lamid ah sidaa darteed waxaa in badan dhacda inaad si fudud uga jawaab celiso adiga oo qiyaasaya jawaabta ku habboon haddaba haddii ay dhacdo in saacad ama 2 saacadood kadib mar kale dib lagu weydiiyo kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaa in su'aal jawaabteeda aadan horay u diyaarsan laakiin kaliya ahayd wax markaas maskaxdaada aad ka aliftay inaad mar labaad ku soo celin karto marmarka qaar waxaad arkaysaa qof aan waxna qorin waxna akhrin haddana kayskiisu aad complicated u yahay waana caqabad haysata dadka qaar loona baahan yahay in aad mar walba ka feejignaato xilli horena diyaar garow ka samayso adigoo ahmiyad gaar ah siinaya dhammaan imkaaniyaadka muhiimka u ah dacwadaada sida inaad luuqadda barato iyo dhammaan xirfadaha muhiimka ku ah ee hadhow ku saacidi kara qodobka ku xiga waxaad marmarka qaar arkaysaa shakhsi qof walba oo interview soo mara waraysi la yeelanaya muhiimadiisuna tahay inuu wax badan ogaado si ugu yaraan uu fikrado isaga anfacaya uga helo haddaba waxaan si fudud kuu leeyahay iska jar dhaqamada noocaas ah waaba haddii aad leedahay sababtoo ah interviewgu waa mid ku xiran qaab dhismeedka kayskaaga iyo inta diyaar garowgaagu dhan yahay waxa aad ka midaysan tihiin dadkaas ayaa ah magaca interview oo kaliya halna waa muhiim inaad maskaxda ku hayso mar walba oo ay badato su'aasha ah maxaa lagu soo dhahay ama lagu soo weydiiyey waa mar walba oo aad helayso jawaabo badan haddana kala duwan suuragalna maaha in dadkaasi jawaabo isku mid ah aad ka hesho maadaama su'aalaha la weydiiyey ay ahaayeen kuwa kayskooda xiriir la lahaa sidaa darteed waa inaadan noqon qofkii bukay ee boqolka qof u talisay taasoo micnaheedu yahay qofku haddii uu bukoodo oo uusan dhakhtar u tegin ee qof walba oo ka soo horbaxa weydiiyo xanuun noocaas ah ayaa i haya qof walba waxa uu kuu sheegayaa shay ama maado uu hadda ka hor isticmaalay kuna caafimaaday waana halka Soomaalidu ka tiraahdo qof bukaa boqolay u talisay waxaa sidoo kale dhacda in dadka xagga jooga waxaan ula jeedaa Canada ay wax ka bedel ku sameeyaan markii kayska loo diro waana muhiim in qofka applicantiga ahi mar walba maskaxda ku haya arrintaas maxaan sidaas ku leeyahay marmarka qaar waxaad arkaysaa qof interviewgiisu maalin ama 2 maalmood ka dhiman tahay oo ku dhahaya hadda ayaa kayskayga la soo diray ee ha layga caawiyo waxaa taas ka sii daran oo kaysaska xafiisyadeena soo gaara kamid ah dad kaysaskoodiina la bedelay haddana aan loo sheegin in kayskooda wax ka bedel lagu sameeyay ee goobtii interviewga la tagay sheeko hore oo laga yaabo in 2 sano ka hor laga guuray yacni la bedelay waana arrin ka hortag leh laakiin ka dabataggeedu aad u adag tahay waxaa sidoo kale marmarka qaar dhacda in qofka interpreterka ama turjumaanka ahi ee u dhaxeeya sarkaalka ku wareysanaya iyo adiga uu jawaabaha aad bixinayso u dhigo si ka duwan sida aad adigu u tiri sidaas la mid ahna uu su'aalaha lagu weydiiyo ee sarkaalka ku wareysanaya ka imanaya u dhigo sida saxda ah ee lagu weydiiyey si ka duwan sidaa darteed waa muhiim inaad si dhow ula socoto hadallada interpreterka iyo officerka ku wareysanaya dhex maraya taasi waxay kaa taageeraysaa inaad kantaroosho hadallo badan oo sida aad u tiri si ka duwan loo turjumay aan hore u sii soconne waxaan sidoo kale rabaa
rabaa inaan xuso 30 jir laga yaabo in xilliga uu dalkiisii hooyo ka soo tegay tahay 2 ama 3 sano ka hor haddana marka kayskiisa la dhex galo qaab ahaan ka sheekaynaya qof caruur ah oo sanad ama 2 sano ka hor qaangaaray tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in 2022 uu dalka ka soo tegay da ahaanna uu waqtigaas jiray 28 sano xilliga dacwadiisa la qorayna tahay sanadkii ku xigay 2023 oo da ahaan noqonaysa 29 sano ka waran haddii qofka caynkaas ahi dacwad ahaan loo qoro aabahay waxa uu dhintay 2020 hooyo ayaana soo korisay aniguna ayada ayaan caawin jiray ogow qofka sidaas kayskiisu u qoran yahay waa 30 jir caafimaad qaba wax bartay waa su'aale haddii aan sidaas ku qaadano soo kama soo baxayso su'aal ah sidee adiga oo qof weyn ah caafimaad qaba hooyada oo waayeel ah kuugu shaqaysay ugu dambayn haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka lay garayso siina sheer garayso si uu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iideystaan wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska hana hilmaamin inaad channelka subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbino aysan marna ku dhaafin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa walaalkiin Saacid Xaaji Aadan oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi